السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلانتي وعن أو وناكسن دلهانتين به meel walba waad joogtaan iyo si walba oo aad nula socotaan waxaanu idin leenahay halkani waa telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya ee ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga qorsheegtu waxay ku beegan tahay daawadayaal xilligii adhadahan oo kale aad noga barateen in aanu si toos ah wada idinku soo gudbino guud ahaanba warar wixii na soo gaaray qodobada wararkaanu idin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxa kamid ah madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa u furay tababaray ujeedadiisu ahayd kor u qaadida garaadka aqooneed iyo gudashada waajibaadka shaqo 600 oo kamid ah hogaaminta dhexe ee gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka maayarka magaalada Addis Ababa oo sheegay inay wadaan dadaal lagu taageerayo dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii ka dhacay magaalada Addis Ababa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaanu daawadayaal xilli tabinteenan wareed idinku haynaa anigoo Cabdirasaaq Ibraahim Kalaasan haduu eeba idmo waan idin la socodsiin doonaa waatahay daawadayaal mar kale isku soo noqod wacan oo wanaagsan haatan ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa u furay tababaray ujeedadiisu ahayd kor u qaadida garaadka aqooneed iyo gudashada waajibaadka shaqo 600 oo kamid ah hogaaminta dhexe ee gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka warbixin umuurtaasi ku saabsan aynu u talowno waxa gudaha caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga gaar ahaan hoolka shararka ee macadka maareynta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu uga furmay tababarka hogaaminta dhexe 600 oo kamid ah hogaaminta dhexe ee gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka ujeedooyinka ugu muhiimsan ee tababarkani ayaana ahaa kor u qaadida garaadka aqooneed ee hogaaminta dhexe ee deegaanka iyo sidoo kale gudashada waajibaadka shaqada tababarkani oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya xukuumadda deegaanka oo ay kamid ahaayeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo afayeenka golaha baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna madaxa arrimaha xisbiga ee xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayaa waxa ugu horeyn tababarkani furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in tababarkani uu yahay shuruuc iyo sharci u baahan in la ilaaliyo isla markaasina looga baahan yahay in hogaaminta dhexe ee qaadanaysa tababarkani ay u dhunduleelaan casharada ay qaadanayaan iyaga oo sameynaya firfircooni dhinaca ka qayb qaadashada ah waxaan noo bilaabmayaa tababarka hogaaminta dhexe loogu talagalay tababar dhanka kobcinta awoodda ah garaadka waxa weeyaan kor u qaadida garaadka waxa weeyaan gudashada waajibaadka shaqo iyo siyaasadeed tababar ku saabsan baa waxa weeyaan aad qaadanaysaa tababarkaas shuruud iyo sharci uu leeyahay marka in shuruud iyo sharcigiisa la ilaaliyo ayaa laga maarmaan shuruud iyo sharciga tababarka iyo waxa weeyaan procedure iyo nidaamka uu leeyahay in waxa weeyaan la ilaaliyo ayaa loo baahan salahan marka koowaad waxa weeyaan hal markii baa jiraya kadibna waxaan ku raayay groupkii baa jiraya classada groupka lagu galay waa jiraya kadibna waxa jiraya waxa weeyaan andilaamisteedii baa jiraya saasoo qaab dhismeedkii caadiga ahaa group mataqaanaa awayaygii baa jiraya waxa weeyaan classka ama waxa weeyaan markaad kifilka gashaan dadkii awayayga ahaa ayaa jiraya marka waxa weeyaan gruubyada هاي مدركة وحوية وحالة يخصين من هذه ليلة وحي جود تابرك جود بتكون قاعدة نسان تابرك جود مركز قاعدان كتب وحوية كاسة لنا تجي وحالة تجي كلاس كي جروب ولا تجي كتبنا وحوية يعني نعد كستلوه صيني تابطي كله روح كست أو هالك كوتشي يوائنه وحوية كقايب قاعدة تابرك أو وحو سوء فهمي يوحنا أفهم بوينه هلا أو صوب عندنا فكر كيسة كوادن قلبها تابر وتابر ده كل حشروي ما هو تابر محن قرايا معلم يعرضه
tababar macallin iyo arday maaha waa tababar waxa weeyaan يعني labada dhinacba tuul ka soconaya wallahi wax la kala faa'iideysanaya marka taasina ogaataan oo la tababarka waxbaad ku leedahay waxna inaad ka saxdo waxna aad ka qaato waxna aad wixii aad dhaliilaysan aad sheegto iyo noqonaysa oo dood uu badnaanaya tababarka madaxweynaha ayaa sidoo kale mar uu ka hadlayay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee uu tababarkani xambaarsan yahay ayaa sheegay in tababarkani uu yahay mid kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee hogaaminta dhexe ee gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka ujeedada ugu muhiimsan ee tababarka waxa weeyaan waa in garaadka waxa weeyaan kobac capacity building weeyaan in maxaan ku raafaa tayadayna iyo gudashada waajibaadka shaqo in kor loo qaado ma aha u fiirso waxa weeyaan qofka tababartay waxa weeyaan la tababaray iyo qofka aan tababarin isku mid ma noqon karo marka laga hadlayo qaybtaas iyada shaqo lagu qaban lahaa intaasoo sano ku qaadan lahayd baa laga yaabaa inuu waqti yaro gaaban markuu cilmigeeda leeyahay waxa weeyaan dee gaariga in la dhaqaajiyo waxaan garanayn waxay ku tahay dhibaato meel ku hayo ma garanayo laakiin hadduu tababarto oo uu darawalnimada tababarto dee waa kan ayar iska kaxaynaya ilaa diyaaradda maxaan kula tababar weeye waxaa lagu gaaray diyaaradda waa barasho tababar weeyaan waxa maxaan kula bayloodkooda diyaaradda ku kicinaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ugu dambeyn kula dardaarmay hogaaminta dhexe ee qaadanaysa tababarkani inay ilaaliyaan waqtiga ay galayaan tababarka sidoo kalena casharada ay ka dhaxlaan tababarkani ay sii gaarsiiyaan bulshada ku nool goobihii ay ka kala yimaadeen qodobka ugu muhiimsan aan kula dardaarmay waa inaad ilaalisaan waqtiga tababarka waxa kamid ah inaad waxa weeyaan xilligii loogu talagalay meeshii lagu talagalay aad ku ahaato xaadir weeye in laga horgalo ma saacada waxa loo baahan yahay inaad tababarka waxa weeyaan sida ugu tahay aad ka faa'iideysto dadkana u faa'iideyso oo wixii la soo dhigo inaad waxa weeye maxaan ku rahaayay yacni aad qaadato oo ka doodo iyo noqonaysa xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u qabtay tababar ku saabsan sidii daraasad looga soo sameyn lahaa saameynta ay ku yeesheen roobabkii guga 6 bilood ee la soo dhaafay nolosha bulshada iyo tan xoolahaba ee ka jirta gobolada iyo degmooyinka deegaanka xubno isku dhaf ah oo ka kala socday xafiisyada heer deegaan iyo hay'adaha bahwadaagta la ah ee aan dawliga ahayn wariye Farax Bade ayaa warbixin umurtaasi ku saabsan inoo haya daraasadyadu waa qaybaha ugu muhiimsan ee xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu qabto sidaas darteed kuwani waa kooxo isugu jira shaqaalaha xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka xafiisyada kale ee heer deegaan ay wada shaqaynta leeyihiin iyo sidoo kale hay'adaha bahwadaagta ah ee aan dawliga ahayn oo loo kala dirayo gobolada iyo degmooyinka uu deegaanku ka kooban yahay si ay daraasad la xiriira xaaladaha cunooyinka sektorka caafimaadka xaaladaha daaqa xoolaha beeraha biyaha waxbarashada iyo xaaladaha caafimaadka xoolaha deegaanka ku sugan yahay ay u soo sameeyaan waxaana kulanka lagu siinayay xubnahan macluumaad la xiriira daraasaadka ay soo sameynayaan hadday noqoto dhanka farsamada iyo hadday noqoto dhanka baadigoobka xogaha waxaana kulankan furay wasiir ku-xigeenka xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Anwar Cali oo furitaan kadibna faahfaahin naga siiyay ujeedooyinka kulankan iyo marka ay u kala baxaan deegaanka xubnahani waxyaabaha ay soo qabanayaan waxa weeyaan daraasadan waa daraasada Google yiraahdo waxa la sameeyay 6 biloodba hal mar waxa lagu ogaadaa xaaladda roobka iyo saameynta uu leeyahay dhinaca hawlaha bini'aadanimo waxa ka qayb galay dhammaan xafiisyada heer deegaan sida xafiiska ka hortagga iyo xafiiska DBB-da xafiiska biyaha xafiiska waxbarashada caafimaadka xafiiska horumarinta xoolaha beeraha iyo haweenkaba dhammaan xafiisyada oo heer deegaan min 5 xubnood bay soo direen sidoo kale waxa ka qayb galay laamaha UN-ta hay'adaha bahwadaagta anahay sida UN-ta iyo hay'adaha kale oo caalamiga iyo kuwa localkaba daraasadan waxa ka qayb galay guud ahaan ilaa shaqaale 100 dhaafayo hadda waa 2 cisho tababar qaabkay u shaqeynayaan bay wadaan kadibna degmooyinka dhammaan degmooyinka soo wareegi doonaan lagu kala qoray oo muddo 20 cisho ka soo shaqeyn doonaan sideeda waxa lagu ogaadaa xaaladda bini'aadanimo waqti xaadirkan iyo sahanka 6 bilood oo soo socda lagu saameeyaa kadib 20 cisho kadib halkan inoo iman doonaan
ay wixii warbixintooda soo bandhigi doonaan sidoo kale waxaan ka rajeynayaa dhammaan degmooyinkii gobolada waxaan ka codsanayaa kula dardaarmaya inay si fiican u soo dhaweeyaan ay si fiican ula shaqeeyaan dhankiisana agaasinka waaxda digniinta hore ee jawaab celinta ee xafiiska kahortaga iyo diyaargarowga masiibooyinka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya oo aan wareysi la yeelanay ayaa faahfaahin naga siiyey tababarkan muddada 2 maalmood soconaya inta uu socdo waxyaabaha lagu baran doono oo ah qaababka ugu fudud ay ku soo sameyn karaan macluumaad sax oo ka turjumaya xaqiiqada jirta sida ogtiin wadanka Itoobiya 2 jeer ayaa la qabtaa daraasaadka noocana waa guga iyo dayrta balgeena meher assessment weeyaan marka waxa isku yimid dad gaadhaya 70 aqoon-yahan oo kala duwan oo ka kala socda hay'adaha dawliga iyo hay'adaha caalamiga ee UN-ta marka waxay soo baarayaan 17 laafluhud uu deegaankeenu leeyahay deegaankeenu wuxuu leeyahay 17 qaab nololeed ayuu leeyahay oo ka kooban dhammaan deegaankeena degmo walba deegaankeena 17 ka laafluhud ay daraasaad ku soo sameynayaan waxayna tagayaan dhammaan degmooyinka deegaankeena waxyaalaha soo baarayaan waxa kamid ah waxay soo ogaayaan xaaladda nolosha ee dadku ay ku sugan yihiin iyo raabku saameynta uu ku keenay dadkeena hadda xubnahan ayaa markay tababarka 2 maalmood soconaya dhameysaan waxay kala bixi doonaan gobolada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka kooban yahay waxayna soo sameyn doonaan daraasaad la xiriira xaaladaha imika ka jirta deegaanka iyo saameynta xaaladaha 6 bilood ee soo socota beeraleyda ku dhaqan degmooyinka Gursum iyo koonfurta Jigjiga ayaa la siiyay tababaro ku saabsan habka loo isticmaalo daawada bacriminta carrada warbixin murtaasi ku saabsan waxa inoo haya wariye Maxamed Cumar Ceelaabe xafiiska beeraha iyo xoolaha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo ka duulay jooyinka u yaala ayaa dadaal ugu jira kor u qaadida wax soo saarka beeraha ee guud ahaan dalka haddaba si loo helo wax soo saar tayeysan waxa laga maarmaana in loo abtiriyo carrada isla markaana kor loo qaado nidaamka maamulka carrada iyo bacriminta dhulka haddaba xafiiska beeraha iyo xoolaha ee heer federaal iyo xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee deegaanka oo iskaashanaya ayaa dadaal ugu jira in kor loo qaado nidaamka bacriminta carrada iyadoo qaar kamid ah beeraleyda deegaanka la soo gaarsiiyay daawooyinka bacriminta carrada casriga ee MBS urea KCL haddaba daawooyinkan bacriminta ayaa kuwa lagu tijaabinaya carrada iyadoo la marinayo tijaabooyin kala duwan haddaba beeraleyda carracaska iyo golaxaajo ee ka kala tirsan degmada koonfurta Jigjiga ee degmada Gursum ayaa la siiyay tababaro ku aadan habka loo isticmaalayo daawada bacriminta isla markaana tababaro lagu siiyay faltusmeedyo kala duwan iyadoo midhaha daawooyinkan la isku darayo halka qaarna gooni lagu darayo carrada isla markaana daraasaad badan oo la sameeyay lagu ogaaday inay kor u qaadayaan natiijooyinka wax soo saarka haddaba beeraleydan oo muddooyinka u dambeeyay dadaal ugu jira kor u qaadida wax soo saarka kala duwan ayaa tilmaamay wax soo saarkii ay wadeen waqti xaadirkana ay ka faa'iideysan doonaan tijaabooyinkan sida dawadan bacriminta la soo gaarsiiyay oo ay faham buuxa ka qaateen habka loo maamulayo ama loo isticmaalayo dawadan bacriminta waagii hore dhulka waan iska beerin jiray waxaan ku orin nidaam casri iyo midna waxaan ku orin sida umman beerin jiray baan isaga beerin jiray maanta nidaam casri aan ka fahanay oo marka waxaan ku orin aan maanta nala baray oo nadigii maaragtay kaga faa'iideysanayna maanta dawladdu waxayna bartay wax arsi ay cusub oo wali aan la waan arag marka faa'iido badan baan ka aragnay siday noo tababareen maanta umaati ay noo tababareen marka qorshahan iyagu in aan maartay aan ku sidaa ku wadno oo shaqada walba aan ku wadano Suldaan Farxaan Maxamuud waa agaasinka isticmaalka iyo maamulka dhulka iyo horumarinta bacriminta carrada ee xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee deegaanka ayaa tilmaamay in dadaalkani uu qayb ka yahay muddooyinka u dambeeyay la soo darsay isla markaana xafiiska beeraha iyo xoolaha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo kaashanaya xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee deegaanka ay waqti xaadirkan wadaan dadaalo kor loogu qaadayo gaarsiinta daawooyinka bacriminta carrada beeraleyda kala duwan ee deegaanka sidaan ognahay waxa jira mashaariic ay xukuumaddu wado iyo ma garanaysaa oo lagu horumarinayo nafaqooyinka carrada iyo nolosha bulshada xoolo dhaqatada marka xafiiska beeruhu wuxuu qorsheeyay in ma garanaysaa la kordhiyo wax soo saarka beeraha waxay u baahan tahay in si casriyeysan loo isticmaalo land use systemka isticmaalka dhulka korna loo qaado nafaqeynta carrada marka xafiisku wuxuu qorsheeyay isagoo ay iska kaashanayaan xafiiska beeraha heer qaran ayaa waxay qorsheeyeen in bulshada lagu tababaro
lana gaadhsiiyo sidaydun arkaysaan teknolojiyadda casriga ee lagu horumariyo nafaqada carrada. dadaaladan ayaa ah kuwa muddooyinkii u dambeeyeyba ka socday guud ahaan dalka isla markaana daraasaadyo badan la sameeyey taasoo qayb ka mid kor loogu qaadayo wax soo saarka dalka iyo laga faa'iidaysanaya kheyraadku dalku leeyahay. daawooyinkan bacrimintuna ay noqon doonaan kuwo loogu abtiriyo carrada si loo cabiro hadba carrada ku habboon wax soo saarka kala duwan. bulshada ku dhaqan tuulada Misiga iyo Mareexaan ee ka tirsan degmada Fiiq ee gobolka Erar ayaa si weyn u soo dhaweeyay saddexda biyo xidheen ee ay ka fulinayaan maamulka degmada Fiiq tuuladaasi. wariye Cabdikaafi Axmed Wali oo alaaba gobolkaasi Erar inooga soo warama ayaa warbixin murtaasi ku saabsan inoo haya. tuulada Misiga iyo Mareexaan oo ka tirsan degmada Fiiq ee xarunta gobolka Erar ayaa waxay 50 kiiloomitir dhanka bari ka xigtaa degmadaasi Fiiq waxayna tuuladani ka mid ahayd goobihii hagardaamooyinka ba'an u geysteen nabadiidkii la ciribtiray ee soo maray deegaanka waxayna xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wacad ku martay in shacabka ku dhaqan guud ahaanba dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka qabtirto dhammaan adeegyada kaabayaasha horumarineed ay shacabka ku dhaqan tuulada iyo nawaaxigeeda horay u gaarsiisay dhammaanba adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha tuuladan oo ku taala dhul hawd ah oo ka durugsan goobaha sida fudud looga heli karo adeega biyaha isla markaasna ay ku nool yihiin bulsho tira badan ayaa waxay in muddo shacabku tabayeen baahi biyo yaraaneed haddaba hogaaminta xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u dhagan nugul ka jawaabista baahida shacabkeeda ayaa waxay qaadatay sida ugu fudud ee shacabkana loo gaarsiin karo biyo ku filan waxayna maamulka degmada Fiiq ee xarunta gobolka Erar si rasmi ah u bilaabeen saddex biyo xidheen oo mid ka mid ah laga fulinayo duleedka tuulada Misiga iyo Mareexaan waxaana adeegan si mug leh uga mahad celiyay shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan deegaankaasi. Misiga iyo Mareexaan waxay ahayd meeshii la iska yaqiinay hayjad bay ahayd dhibaatooyin badan baa nagu soo maray hadday tu colaadee tahay iyo hadday tu oon tahay iyo dhibka nagu soo maray ilaahay un baa xisaabin karaa haddana ilaahay waxa lagu mahadiyo meeshii aan colaad la joogi lahayn ee habeenkii kolkuu gobolku noo dhacay waagu muxuu kuugu beriyay aanu lahayn ayadoonan cidna ka baqayn ilaahay mooyaan baanu annaga iyo dawladnadii oo gacanta haysaysannoon cidna cid ayna wehelu ahayn oo nin wali meeshiisa ku raaxaysan baanu wada joognaa si fiican iyo alxamdulilah aanu ku mahadinaynaa ayaa naloo gacan qabtay iyadoonbaa biyaha noo keenaysay iyadoonba caafimaadka noo keenaysay ruuxa buka ambalaasta noo qaadaysay nabadgelyadii baa noo dhammaatay dhinac walba waanu ilaahay baan ku xamdiyeynaa maantana waxaa noo dhacay gidhibkii ugu fiicnaa ee dalkanaan joogno kii ugu weynaa yaa noo socda waa wax ilaahay lagu xamdiyo waxay noo qabatay iskuulkii baa naloo qabtay iskuul eebiya baa naloo dhisay heldbostiga caafimaadka xoolaha naloo dhisay kii dadkuna hadda ayuu dhismihiisii noo dhammaaday waxa weeye waxa keliya heen tabayna ee in naloo qabta dawladdu ay noo qabatay aan sugaynay wuxuu ahaa gidhibkan maanta naloo hayo waxa dhibkanaga ugu badan ee ugu ballaadhan ee ugu weyneen annagu dawladda maanta inay aanu ku mahadinayno aan sugaynay ka sugaynay waxa weeye oon buu ahaa biyo la'aan bay ahayd biyo la'aantiina alxamdulilah rabbilcaalamiin waad aragtaan maanta waan ku faraxsannahay in maanta gidhib aad u weyn oo ballaadhan ay dawlad deegaanku noo qabtay dhanka kale mas'uuliyiinta maamulka degmada Fiiq oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Fiiq ayaa soo kormeeray goobaha laga fulinayo mashaariicdan horumarineed waxaana ugu horeyn la hadlay warbaahinta gudoomiyaha degmada Fiiq mudane Nadiir Yuusuf Aadan iyo madaxa xafiiska biyaha ee degmadaasi mudane Cabdirasaaq Geelle waxayna mas'uuliyiintani sheegeen inay tani qayb ka tahay tallaabooyinka lagu taabagelinayo dhammaanba adeegyada kaabayaasha horumarineed ee la gaarsiinayo shacabka degmada Fiiq isla markaana ay mashaariicdan yihiin kuwa soo afjari doona baahidii biyo yaraaneed kuna soo afjari doonaan muddo hal bil gudaheed halkan waxaan ka dhisnay horumarkii xarunta caafimaadka tii dugsigii waan dhisnay waxaan sameynaa kala tii xoolaha waxaan hadda gacanta ku haynaa waxa weeyaan dhaamkii ma garanaysaa hafardhaamkii ugu weynaa ee hafardhaamadii dawlad deegaanka kuwii ugu standardka fiicnaa weliba noqonaya kaasoo lacag yarna ay ku baxayso oo lacag yar oo fudud ay ku baxayso waxaan sameynay dadkii shacabka ahaa iyagoo taagan si ay biyo u helaan waxay ka dhaansan jireen 50 kiiloomitir ilaa 40 kiiloomitir waxa ugu dhow Fiiq iyo Dundubacadka meel biyo ay ka helaan marka waxaan qaadanay go'aana inaan dadka ugu sameeyno saddexda dhaam waxay kala yihiin qabalahan la yiraahdo Misiga iyo Mareexaan qabalaha la yiraahdo Hardhagax iyo qabalaha Gabayl la yiraahdo waa saddexdii meelood ee ugu fogaa degmada
waa 3 meelood oo biyo la'aan ahayd waxaan qaadanay muddo hal bil inaan ku soo dhamaystirno saasaan u garab taaganahay dhankiisana injineerka gacanta ku haya fulinta shaqada mashaariicdan ayaa sheegay inay muddo kooban ku soo gabagabeyn doonaan mashaariicdan iyaga oo kaashanaya khibradii ay ka heleen mashaariicii horumarineed ee noocan oo kala ahaa ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadkii 2008 ka fulisay guud ahaanba dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhaamkan meesha site selectionkiisa hadda aan xulanay waa meel aad ugu haboon in laga sameeyo irtidaam biyaha uu qaadayo marka qiyaas ahaan aan qiyaasno ilaa 1 milyan oo mitir cube inuu qaado ayaan rajaynaynaa waa marka macnaha hadda site-kan aan qiyaasna weeyay shaqadiisu hadda sidaan aad arkaysaan baa u socotaa si habsami leh u socotaa hadda waa muddo yar waxa aan production-kii carrada oo dhan aan ku dhamaystirnay waxaan rajaynaynaa sidii macnaha dawladda deegaanka Soomaalida looga bartay in muddo gaaban mashruuc taaba gala aan sameeyno cabdikaafi axmed wali telefishinka caalamiga ah ee ESTV tuulada Misigiya Mareexaana oo ka tirsan degmada Fiiqe mas'uuliyiinta maamulka degmada Goljanno ee gobolka Faafan ayaa ku wareejiyay guryihii xoolihii dhulbeereedkii iyo agabkii ay ku noolaan lahaayeen qoysaskii danyarta ahaa ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan qorshaha baabaco ee bulshada dib u dejinta loogu sameynayo degmadaasi wariye Inshaar Maxamuud ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo faahfaahinaya qorshaha baadibiye iyo cilmi marka la soo gaabiyo loo yaqaan babaca waa mid guud ahaanba ka socda degmooyinka deegaanka maamul magaalooyinka deegaanka uu ka kooban yahay ayaa waqti xaadirkan bulshada deegaanku sidii loogu talagalay ay uga faa'iideysanayaan isla mar ahaantaana qorshahan uu yahay mid ay xukuumadda deegaanku hindistay ujeedada ka dambaysa aan ay tahay sidii nolosha reer guuraanimo looga sabatan bixin lahaa ee bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka loogu bedelay hab casri ah oo dibadejina haddaba goobtan waa degmada Goljanno ee dibadejinta loogu sameeyay 63 qoys laga soo kala xulay qabalayada ay degmadu ka kooban tahay waxa lagu wareejiyay guryihii oo dhameystiran iyo sidoo kale gogashii guryaha iyo waxay cuni lahaayeen oo nooc walba ka kooban iyo xoolo laba meesi oo ka kooban adhi iyo loobale sidoo kale waxaa barbar socday calafka xoolaha oo loo beeray xoolahan iyo beerta baabacay ee loogu talagalay qorshahan dibadejinta waana mid ay kaga raysan doonaan bulshada dibadejinta loo sameeyay dhibaatadii ka soo martay abaaraha iyagoona xoolahaas ka heli doonaa cad iyo caano kuwii hore ka badan haddaba waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada dibadejinta loo sameeyay waxayna noo sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin qorshahan ay xukuumadda dibadejinta ugu samaysay waxaana la siiyay saakana loo qaybinayaa 6 bilood raashinkii aan cuni lahayn haye furaashtii gogolihii garaafayaashii agaabtii oo dhan 6 bilood wixii la cun lahaaba loo qaybinayaa xalafkii xoolaha waana loo beeray raashinkii waana loo beeray khudradii waana loo beeray haye 25 ari ana la siiyay waxaana la siiyay 5 lo ah aqalihii baana la siiyay aqalihii lagu xareyn lahaa looda waana loo dhis aqalihii lagu xareyn lahaa arigana waana loo dhis qasabadihii waana loo sameeyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dawladdan u mahad celinayna iyada waqtigan soo gaarsiisay 63 guri inaad ku aragtaan inay dhisan yihiin qalabkii qoys lahaa oo cuntayadii ka kooban 6 bilooda wixii guriga qalab ahaa ee uu lahaa nawaka waa naloo qaybinayaa saaka baabacadii oo dhammaystiran oo naloo biyo geliyey oo ka kooban 2 qodob calafkii xoolaha iyo raashinkii bana nalagu wareejiyey saaka waxaa la qaybinayaa oo kale oo naloo qaybinayaa xoolihii oo ka kooban 2 nooc 25 ari qoyskii iyo 5 lo ah horumarka inta leeg inaan ka faa'iideysano annaguna aad baan u soo dhaweynaynaa 100% sidoo kale waxaa goobtaas hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Goljanno mudane Cabdullaahi Xasan Ibraahim iyo madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Deeq Cabdi iyagoona sheegay mas'uuliyiintani in ay ku soo gabagabeeyeen mashaariicda 2010 ee dibadejinta loogu talagalay kuna wareejiyeen 63 qoys dibadejinta loo sameeyay iyadoo oo dhameystiran iyadoo qorshaha 2010 oo ahaa 63 qoys oo ah dadkii xoolo ay ka dhamaadeen oo xaal dhaqatada ahaa in loo bedelo xoolo dhaqato beeraley isla markaasna looga faa'iideeyo qorshaha baabacada ee guud ahaan xukuumadda iyo xisbiga uu qaatay 2010 ka degma ahaan qorshahayagu wuxuu ahaa 63 qoys inaan ku wareejino dhul beeroodkoogii dhulkii calafka xoolaha looga beeray sidoo kale guud ahaan 63 guri guryihii xoolaha ay ku dhaqanayeen ama feeding lotkii
iyadoo loo biyageliyey sidoo kale beertana loogu biyageliyey nidaam masna ah loogu biyageliyey sidoo kale waxaan ku wareejinay iyakana xoolihii loo soo gaday dadka danyarta si ay ugu dhaqan lahaayeen nidaamka casriga ah ee xoolaha loo dhaqdo marka guud ahaan 63 qoys waan ku wareejinay saaka dhulkii haday tahay guriyada haday tahay xoolihii haday tahayba waxaan u qaybinay 1275 neef oo ari ah oo qoyskiiba ay ku hagaagayso 25 neef sida oo kale 315 lo ah oo qoyskiiba ay 5 lo ku hagaagayso sida oo kale waxa qorshaysan iyaduna in ay waxay cun lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo weelka ay isticmaali lahaayeen guud ahaan agabkii loogu tala galay qoyska oo dhameystiran iyadana in loo keeno ay ahayd waana loo keenay marka guud ahaan maanta waxaa noo dhamaatay in aan ku wareejino guryahoodii xoolahoodii beertoodii dhammaan wixii ay ugu tala galay xukuumadda ay ugu tala gashay in bulshadan lagu kabo danyarta ah qorshahan dibdejintu waa mid casri oo guud ahaan degmooyinka deegaanka iyo maamul magaalooyinka iyo deegaankaba ka socda waa mid ay bulshada xoolo dhaqatada guuranimada ay kaga raysan doonaan qorshahan cusub ee dibdejinta inshaad maxamed xasan telefishinka caalamiga Soomaaliya Itoobiya ASTV degmada Gobolka ee gobolkaasi faafan wali daawadayaal halkaad sida tooska ah nogala socotaani waa ASTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga maayarka magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo lagu taageerayo dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii ka dhacay magaalada Addis Ababa Ibrahim Cabdi Muuse ayaa warbixin umurtaasi ku saabsan inoo haya maalintii sabtidii aynu soo dhaafnay oo ku beegnayd 16 bishii tobnaad 2010 waa tirsi taariikheedka dalka ayaa waxa gudaha magaalada Addis Ababa isugu soo baxay dadaad u tiro badan oo watay boodhar ay ku qoran yihiin halku dhigiye ka turjumaya waxqabadka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed intaasi kadibna waxa goobta ay dadku isugu yimaadeen ka dhacay qarax lama filaan ah oo geystay khasaare naf iyo maalba leh haddaba maamulka magaalada Addis Ababa oo qabtay kulan lagaga wada tashanayay qaabkii loo caawin lahaa dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii dhacay ayaa sheegay inay dadkaasi dhib ku soo gaadheen ku caawin doonaan lacag dhan 10 milyan oo bir isla markaana lacagtaasi u bixin doonaan hadba sida ay dadku u kala baahi badan yihiin maruu haddaba arrintaasi ka hadlay maayarka magaalada Addis Ababa Mudane Driba Kuma ayaa waxa uu sheegay inay hawshaasi fulinteeda guddi aad u adag u sameeyeen oo hawshii wada ኮሚቴ አቋቁመናል አንድ ጠንካራ ኮሚቴ ይሄ ኮሚቴ በአንድ በኩል ድጋፍ መስጠት የሚፈልጉ የከተማችን ነዋሪዎች ባለሀብቶች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመንግስት ተቋሞች ጭምር ድጋፍ በማሰባሰብ መልሶ ለማቋቋም ነው አንዱ ስራ የሚሰራው ሁለተኛ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ የተጎዱትን ዜጎች ለማገዝ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ለዚህ ስራ መድባለን waxaanu dhisnay guddi adag oo ka hawlgalaya arrintan waxayna guddigu fulinayaan laba marxaladood oo kala ah kow inay dadka hantida haysta hay'adaha aan dawliga ahayn iyo shirkadaha kala duwan ee raba inay caawiyaan dadka waxyeeladu soo gaadhay ka gudoomaan taageeradooda iyo midda labaad oo iyana ah inay guddigu ka hawlgalaan meelmarinta lacagta 10 milyan ee bir ah ee uu maamulka magaaladu u qoondeeyay dadka ay waxyeeladu soo gaadhay isla markaana si habsami leh isugu dubaridaan lacagaha la qorsheeyay in la ururiyo waxaan hadda isla meel dhignay inaan hawshaasi sideeda u fulino oo aanu waliba lacagaha taageerada dadka u siino hadba sida ay u kala daran yihiin sidoo kale waxa uu sheegay Mudane Driba Kuma inay ka maamul magaalo ahaan furayaan bank account lagu ururiyo lacagaha taageerada ah ee ay dadku u soo dirayaan dadkii waxyeeloobay sidoo kalena ay dadka taageerada bixinaya iman karayaan xafiiska oo ay ku bixin karayaan wixii caawimaad ah ee ay dadkaasi siinayaan noocay doontaba ha ahaatee መንግስት አዲስ አበባ አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ ከፌደራልም የሚደግፉ ተቋሞች ካሉ እነሱን አሰባስበን የአንድ ወቅት ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ዘላቂ የሆነ የማቋቋም እንደ ከጉዳቱ መጠን ተነስተን የማቋቋም ስራ ነው እንሰራለን ብለን አስበን የጀመርነው dhanka dawladda
maamulka magaalada Adsaaba iyo waliba dhanka federaalkaba haddii ay jirto cid caawimo ka soo diraysa oo dadka dhibku ku dhacay u soo diraysa waanu ururinaynaa kadibna waxaanu wax ugu qabanaynaa dadkii waxyeeladu soo gaadhay annaga oo u eegayna hadba sida ay dhibaatadu u soo gaadhay shakhsiga waxqabadkaasina si uunan u noqonin mid mar kaliya uun ku baaba'a waxaanu ku dadaalaynaa inaannu waxana soo gaadha aanu ugu samayno wax manaafacaad u leh oo ilaa iyo mustaqbalka dambe anfaca hawshanna si degdeg ah ayaannu u bilownay maxaa yeelay laba marxaladood ayaa meesha yaalay midii hore waxay ahayd in bulshada la dejiyo oo aynan hawshan dhacday siyaasiyan saamayn ugu yeelanin geedi socodka bulshada tan labaadna waxay ahayd inaannu si dhaqsaa uga hawlgalno taageerada loo fidinaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii dhacay marka labadii hawloodba waannu gudagallay maanta laga bilaabana waxaannu si toos ah u gudagalaynaa hawlihii taageerada dadka tabaalaysan sidoo kale ka maamul ahaan akoon nambarka wax lagu soo diraya isla maanta ayaannu furaynaa si lacagaha taageeradahe loo soo diraya meel loogu hagaaga u yeeshaan isla markaana lacagta aannu ka maamul ahaan diraynaa u noqoto mid meel loogu hagaaga leh akoon nambarka aannu furaynana warbaahinta ayaannu dadka uga sheegaynaa si ay u ogaadaan oo ay wax ugu soo hagaajiyaan ciddii kale ee rabtay inay xafiiska timaaddo oo ay halkan ku bixisana waxaa jooga guddi ka guddoomaya waxa ay wadaan oo dhan sidaa darteed waxaa noo qorshaysan inaannu muddo gaaban gudaheeda ku fulinno howlahaasi oo dhan geesta kale waxa uu mudane Riba Kuma u mahad celiyey dadkii isu soo baxa isugu yimid maalintii uu qaraxu dhacay ee deganaanshaha iyo wadaninimada muujiyey markii ay wax dhaceen isla markaana aan haba yaraatee wax rabshad iyo buuq iyaga oon samaynin aayar nabad ku hoyday guud ahaanba daawadayaal waxaa intaasi nagaga dhan warar wixiina soo gaadhay oo aad si toosa uga dheehanayseen telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya ee ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga anigoo Cabdirasaaq Ibrahim Claasa ayaa daawadayaal si toos idinku waramayay aniga akhyaartii kale ee sida heerka sare ah igala qayb qaadatay xilli tabinteena wareedba idinkoo diyaar garoobaya qaybaha kale oo TV-gu idinku talagalay waxaanu idinku dhaafaynaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته